السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ku xiran page-kayga Tayo Professional Studies Academy. Insha Allah waxaan duubaynaa maadada physics-ka gaar ahaan waxaan duubaynaa practice-kii labaad. Aan ka soo shaqeynay practice-kii ku qornaa page 5 aan hore ugu soo shaqeynay fiidiyowadii hore u soo daawo. Cawada waxaan ka shaqeynaynaa practice-ka ku qoran page-ka 8 page 8 ee buugaaga manhajka practice-ka ku qoran ayaan ka shaqeyn doonaa. midkiisa koowaad aan ku hormarayna insha Allah. waxaana la siiyay 4 kilogram mass suspended from a spring and stretch a displacement of 20 centimeter and stretch a displacement of 20 centimeter. What is the force constant? Waa maxay madoorsoomaha moolada use g u qaado 10 meter per second square. waxaa lagu yiri culays 4 kilogram ah waxaa laga soo lulmiyay moolo from a spring. mooladii baa waxay kala baxday fogaan dhan 20 cm. waa maxay force constant madoorsoomaha mooladana loo diray. waayahay g waxa u qaadataan la dhahay 10 meter per second square u qaado. waxaan leenahay marka hore waxaan u kala qaadanaynaa given and solution. waxaan leenahay given waxyaabaha aan haysano noo soo bixi. number 1 waxaan haysanaa mass oo ah 4 kilogram. waxaan kaloo haysanaa g oo ah gravitational force oo aan haysano 10 meter per second square. waxaan kaloo haysanaa displacement oo x ah oo aan haysano 20 centimeter. waxaan u baahannahay inaan soo saarano k aan u baahannahay inaan soo saarno. waxaan leenahay k maxaa lagu helaa? k waxaa lagu helaa hore waxaan usoo baranay force in lagu heli jiray minus kx. haddaba waxaan u baahanahay k inaan soo saarto. k waxaa ku dhacsan x labada dhinac waxaan u qaybin doonaa x u qaybi dhinacan waxaan u qaybin doonaa x u qaybi minus meesha taalo minus k. minus ka horta laguma shaqeyn doono kaliya wuxuu sheegayaa direction uu inoo sheegi doonaa. therefore waxaan leenahay x isla saar k waxaa lagu helaa baan leenahay f oo loo qaybiyey x baa lagu helaa force oo loo qaybiyey displacement. k haddaan u baahano waxaa lagu helaa force oo loo qaybiyey displacement. okay aan shaqeysana marka maanta ma haysano force ma haysano laakiin wax u dhigmaan haysanaa according to Newton's second law force waxaa lagu heli jiray m times g ayaa lagu heli jiray. marka booskii maanta forcega waxaa noo gali doonto m times g noo gali doonto. waxaan leenahay k waxay noola mid tahay booska f waxaan gelin doonaa m times g oo loo qaybiyey x. waayahay waxaan haysanaa m waxaan haysanaa 4 kilogram oo ku dhacsan g na waxaan haysanaa m waxaan haysanaa 4 kilogram oo ku dhacsan g na waxaan haysanaa 10 meter per second square oo loo qaybiyey x. hore waxaana loo siiyey 20 centimeter. waxaan u bedelaynaa meter oo waxaan u qaybinaynaa 100. haddaan meter u qayb bedelno waxay noqonaysaa x waxay noola mid noqonaysaa 0.2 meter ee loola mid noqonaysaa. kadib waxaan leenahay marka oo loo qaybiyey 0.2 meter. ugu dambeyn keydeen waxay noqon doontaa inta marka calculator-kaada aad geliso waxaad leedahay 4 times 10 waxaa ka soo bixi doonto 40 kilogram times meter per second square na kaaga soo bixi doonto oo loo qaybiyey aad leedahay 0.2 meter. marka waxaan isweydiinaynaa marka hore intaan oo kore ah waxay u dhigantaa kilogram times meter per second square waxay u dhigantaa newton. yani labadan isku dhufsana waxay u dhigantaa newton. ugu dambeyn waxaa calculator-kaada gelisaa 40 divided by 0.2 wuxuu ku soo saari doonaa calculator-kaaga uu ku siin doonaa 200 oo kor waxaa nooga soo bixi doonto labada halbeeg markay isku dhacaan newton. hoosna waxaan ku haysanaa per meter. marka jawaabta la iga rabo waa intaas waa 200 oo newton per meter ay noqonaysaa. haddaan ku celiyo mar kale waxaa lagu siiyey 4 kilogram oo culays ah waxaa laga soo lalmiyey moolo. mooladii waxay kala baxday fogaan dhan 20 centimeter. what is the force constant? waa maxay madoorsoomaha moolada g na u qaado 10 meter per second square. given keeni waxyaabaha aan haysanay waxaan haysanaa mass oo 4 kilogram ah g oo 10 meter per second square ah displacement oo 20 centimeter ah. 20 centimeter meter u bedelayna waa 0.2 meter ay noqonaysaa. therefore waxaan leeyahay marka qaacidadeeni waxaan ka soo dhex saaranaynaa. therefore k waxaa lagu helaan leenahay f oo loo qaybiyey x. maanta f ma haysano laakiin booskeeda waxaa noo gali doonto m times g oo loo qaybiyey x. mass oo lagu dhuftay gravitation oo loo qaybiyey displacement.
mass waxaan haysanaa 4 kilogram oo lagu dhufto 10 meter per second square labada haddaan isku dhufan waxaa nooga soo bixi doonto 40 kilogram oo ku dhacsan meter per second square oo loo qeybiyo 0.2 kilogram meter per second square waxay u dhigantaa newton ay u dhigantaa marka waxaan leenahay 40 haddaan u qeybino 0.2 waa 200 newton per meter practice-kan wuxuu ku yaalaa bogga 8aad ee buugaaga waa practice-ka koowaad waxaan galaynaa practice-ka labaad wali waxaan ku guda jirnaa practice-ka page-ka 8aad waxaan ka shaqeynaynaa practice-ka labaad aan ka shaqeynaynaa waxaa u dhacayaa mas'alada qaabkan ay u dhacaysaa waxaa la yidhaha a load of 50 newton attached to a spring hanging vertically and stretch the spring 5 centimeter. The spring is now placed horizontally on a table and stretched 11 centimeter. What force is required to stretch the spring? waxaa lagu yiri a load of 50 newton culays ah 50 newton waxaa lagu dhajiyay attached to a spring waxaa lagu xiray moolo hanging vertically waxaa lagu soo lilmiyay qaab joog ah and stretch the spring mooladii waxay kala baxday 5 centimeter kala baxday the spring is now placed isla mooladii haddeerto waxaa la dul dhigay ama la dhigay horizontally qaab jiif ah on a table miis ayaa la dul dhigay qaab jiif ah and stretched 11 centimeter waxayna kala baxday 11 centimeter. What force is required? waa maxay xoogga loo baahanayo to stretch the spring si u kala baxdo mooladaas xoogga loogu baahanayo maxay tahay waxaan lahaa culays 50 newton ah waxaa lagu xiray moolo waliba qaab joog ah ayaa loogu xiray mooladii waxay kala baxday marka 5 centimeter ay kala baxday isla mooladii 5 centimeter kala baxdo culayskaas lagu xiray waxaa loo dhigay qaab jiif ah miis dushiisa kadib waxay kala baxday ilaa 12 centimeter waa maxay xoogga loo baahanayo si mooladaas ay u kala baxdo ama loo kala bixiyo waxaan leenahay marka hore waxaan haysanaa f baan haysanaa f force aan haysanaa oo ah 50 newton baan haysanaa 50 newton 50 newton wuxuu moolada barbixiyay waa x aan u qaadanaynaaye wuxuu barbaxshay 5 centimeter meter hore ugu bedelaynaa waxay noqonaysaa markaasi 100 aan u qaybinaynaa waa 0.05 meter ay noqonaysaa marka meeshan joogo waxaan ka soo dhex saaranaa marka k baan ka soo dhex saaranaa k waxaan leeyahay k maxaa lagu helaa k waxaa lagu helay f oo loo qaybiyay x f oo loo qaybiyay x aan leenahay sababta aan k ugu soo saaranayo waxay tahay su'aasha la ii diray waxaan u baahanaa k aan u baahanaa taas waa marka waan fududeynaa waxaan leeyahay spring constant halkan ka soo dhex saaran doonaa force oo loo qaybiyay displacement waxaan leenahay marka force wuxuu ahaa waa 50 newton oo loo qaybiyay ayaan leenahay 0.05 meter therefore k-den waxay noqon doontaa markaasi marka intaan isku qaybiyo 50 haddii u qaybiyo 0.05 waxay noqon doontaa 1000 newton per meter ay noqon doontaa kadib marka waxaan leenahay mooladii waxaa la dul dhigay miis ayaa la dul dhigay waxayna kala baxday 12 centimeter waxaan u qaadanaynaa 12 centimeter x u qaado waa 11 centimeter meter hore ugu sii bedel waxaan leenahay haddaan meter u bedelno x waxay kula mid tahay 0.11 meter sababtoo waxaan u qaybinay 100 aan u qaybinay kadib waxaan u baahannahay force aan u baahannahay force waxaa lagu heli jiray minus kx minusta laguma shaqeynayo only waxay muujinaysaa opposite direction therefore waxaan leenahay markaa kii waxaan haysanaa 1000 newton per meter oo ku dhacsan aan leenahay displacementigan dambe ku shaqeyn doonaa oo waxaan leenahay markaasi 0.11 meter ugu hore marka meter sareeya ah iyo sidoo kale waxaan isla bixinaynaa meter hooseeya ah labadan markaad isku dhufato waxaa kuu soo bixi doonto f-taada waxaa kuu soo bixi doonto 110 newton ayaa kuu soo bixi doonto marka jawaabta laga rabo waa jawaabtaasi video waa ku celcelish insha Allah waad fahmi doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo practice-kan wuxuu ku yaalaa page-ka 8aad laba xabo ka koobnaa labadaas xabo oo ka shaqeynay saad u jeedaan marka muuqaalka ku celcesho si ay kugu fududaadaan haddaba haddii intaan la soo gaartay muuqaalka ka ilaabin inaad like inoo tiraahdo asxaabtaadana u sii share garayso waxba kaama dhibayso YouTube kana subscribe inoo saarto waad mahadsan tahay tan intaan muuqaalkan la mid ah ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo